magacaygu waa Cabsalaan Axmed Maxamuud Ciyaamo waxaan ahay qoraa waxaan ka qoraa afka dhaqanka sheekafanaada iyo waxyaabo kale waxaa kamid ah sooyaalka ama taariikhda mararka qaar dhacdooyinka ugubka ah bulshada ka dhaca waxyaabo saas ah ayaan tabiyaa intaan buugaagta qoraalkooda aanan bilaabin waxa ka horeysay qoraalo badan maqaalad aad u fara badan aan ku daabacay baraha bulshada laakiin si toos ah waxaan qoraalkayga u bilaabay 2013 xilli ay maaragtay bilow ahayd social media bilow ahaa oo baraha bulshada bilow ahaayeen xilligaas ayaan la soo kowsaday oo qoraalkayga uu soo hana qaaday ilaa haddana sidii ayaan ugu guda jiraa qoraalka ni waxaan u maleynayaa qoraalku inuu ahaa wax aniga ugu nool wax ugu dhex jira waayo waxaan arkay anoo waxuun iska qoray oo baraha bulshada wax ku baahinaya jeclaysanaya inaan dadka wax la wadaago had iyo jeer doonaya inaan wax cusub inta soo raadiyo dadka la wadaago marka saasan maaragtay ayaan ula qabsaday oo ma ahayn wax yani hal mar igu dhashay oo aan ku soo booday ma ahayn waxaan dadka gadaysadana ma ahayn waxay ahayd si rabaani ah igu jira waxaan isku dayaa boqolkiiba boqol ilaaba horta ayaa mar walba qaladka ka nasaan oo qalad uusan ka dhicin laakiin waxaan isku dayaa wax walba aan qoraayo inuusan qalad ku jirin qalad naxwa iyo qalad kale labadaba mar walba waxaan iska ilaaliyaa gef dhanka soo iga imaan karo sidaas darteed waxaan ku dadaalaa qoraalkaygu inuu noqdo qoraal maaragtay boqolkiiba boqol saafi ah qoraal tifaftiran sidaas darteed waxaan isleeyahay qoraalkaagu waa gef badan kuma jiro waxa ugu badan oo qoro waa sheekooyin waxaa ku soo xiga afka iyo dhaqanka waxaan mararka qaar ku tuurtaa waxbarashada oo kuliyadeeda maadaama aan ka soo baxay fildigaygu yahay waxbarasho waxaan isku dayaa inaan iyadana wax ka qoro marka si gaar ah laakiin waxaan sheekada suugaanta iyo dhaqanka si guud halkaasaan ayaan aniguna waan ku raaxaysaa dadkuna waxaan arkaa inay had iyo jeer jeclaystaan sheekooyinka jecel yihiin marka taas ugu wacan in wax la qoro mararka qaar buur bay ka adag tahay mararka qaarna biyo lacabay ka fududahay waxaan u leeyahay qofku markuusan qoraal aqoon uusan u bilownayn aad bay u adag tahay inuu maaragtay wax qoro wax macno la qoro laakiin markuu qoraalka fahmo oo softwareka qoraalku qofka galo qofkaas wuxuu awoodaa inuu wax qoro dabcan uu ku raaxaysan haday sheekatana kuma sii jirto marka anigu waxaan is leeyahay qofkii dadaala oo caqabadaha hore ee bilowga ka adkaada sida saameynta maxay luuqadda qofkii ka soo adkaaday ka soo gudba waxaan is leeyahay qoraalku kuma adka laakiin in boog la qoro iyo taas waa hawl kale laakiin qoraalka caadiga ah ee meelaha wax lagu daabacayo taasi aad uma adka dabcan hadduu qofku ka soo gudbo bilowga hore marka ma qabo inay culays badan tahay Ciyaamo wuxuu leeyahay 3 boog boog hore waxa la yiraahdaa nolosha ardaynimada waa kii ugu horeeyay waxa ku xigay boog la yiraahdo caruuray oo ka kooban dhowr 25 sheeko meelaha naruuriyay sheeko caruureeda oo nuxur leh sheeko walba markay bilaabato dhamaadkeeda uu ku jiro moral ama fariin guud boogayga saddexaad waxa la yiraahdaa af magol oo kan aan hadda dhabta ku hayo marka waa saddexdaas boogan af magol wuxuu ku saabsan yahay waa qoraalka inta ugu badan sida qoraalka loo qurxiyo weerta af Soomaaliga sida macna loogu yeelo sida loo qoro weer ama jumlad macna leh ayuu xooga saaraya marka waa qoraalkii sidaas oo kale wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha maaragtay qoraalka lagu qurxin karo wax kasta ama farsamo walba oo qoraalkan keenaysa inuu qurxoonaado ayaan kaga hadlay naxwiya ku jira sheekafanaadii sida sheekada loo dhiso ayaa ku jira waxa soo dhamaan isugu geeyay marka waa boog aan is leeyahay ku ururi ama maaragtay nuxur fiican ha kala baxano dadka doonaya inay akhriska wax badan ka fahmaan iyo qoraalka qadaas dadkaas aan ugu talagalay marka boogsaas boogan qoraalkiisa waxaan soo bilaabay 2021 bishii labaad waxaan dhameystiray hadda ayaan si toos ah maaragtay daawacada aan ugu fasaxay marka daawacadu ku jira bajaa wala daawacaya marka waa qiyaasi kartaa inta sano ay tahay 2022 bishan dhowr qof aan u qaybiyay intaan daawacad u fasaxin aan weydiiyay bal nuxurkiisa sidoo noqon karo qofku sidoo maaragtay wax fariinta uu sidoo inay qofka gaari karto dabcan qoraalka saas sameeyaa markuu wax daabaco dadka u qaybiyaa si uu u ogaado fariinta hordhaca ah ee dadka ka imaan karta markaan u qaybiyay fariimihii ii soo noqday waxaa kamid ah boogan inuu yahay boog akademiga dadka qaar waxay u yiraahdeen wuxuu mudan yahay in laga dhigo jaamacadaha loo dhigo dadka maaragtay semesterada hore ee bilowga ah loo dhigo maadaama uu ka sheekeynayo qoraalkii iyo maxay tahay suugaantii sheekadii iyo wixii dhan uu ka sheekeynayo qaybihii waxa ku jira Soomaaliga dabcan wuxuu kala baxaa af iyo suugaan
suugaanta waxay u kala baxdaa tix iyo tiraab afkana wuxuu maraa 9 qaybood af Soomaaliga 9 qaybood halka Ingiriisku iyo 8 qaybood 8 parts of speech markaas 9kii qaybood ee af Soomaaliga way ku jiraan maxay tahay magacyaalkii falkaabkii maxay tahay maxay tilmaamihii xiriirihii meelayihii qurubkii qodobkii wixii dhan ku jiraan marka si faahfaahsan ayaan dabcan uga warramay marka waxaan isleeyahay wax weyn buu ku soo kordhi karaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka doonaya inay akhriska horumar fiican ka gaaraan iyo qoraalka waxbuu u galaa wallahi waa wax fiican qofku hadduu doonayo inuu wax qoro waxaan dhihi lahaa anigu waa wax go'aanka ugu fiican waayo dunida hadda waxbaa la qoraa hadalka waa laga waxa waaye hadalku fiican yahay in dadku wada hadlaan waa la isku fahmaa nooc xiriir kamid ah laakiin wax waaraya marka wax waari kara waa qoraalka sidaas darteed qof walba oo ku riyoonayo inuu wax qoro waxaan leeyahay waa sax go'aanka ugu fiican oo qaadan kartana waa inaad wax qorto bilow